maamulka gobolka Shabeellada Dhexe ayaa ka hadlay dhibaatooyinka ay ku qabaan shacabka Soomaaliyeed marista wadada isku xirta Muqdisho iyo degmada Warshiiq ee gobolka Shabeellada Dhexe oo saameeyay bacaad iyo muhiimadda ay u leedahay bulshada ku nool gobolka Shabeellada Dhexe gaar ahaan dadka degan degmada Warshiiq in loo helo wadadaasi sidii loo dhisi lahaa si ay u fududaato isu socodka dadka iyo gaadiidka. Gudoomiyaha gobolka Shabeellada Dhexe Axmed Meyre Makaraan ayaa ugu baaqay shacabka ku nool gobolka Shabeellada Dhexe gaar ahaan ganacsatada qurba joogta Soomaaliyeed ee ka soo jeeda deegaanka degmada Warshiiq inay ka qayb qaataan dhismaha wadada isku xirta Muqdisho iyo degmada Warshiiq ee gobolka Shabeellada Dhexe. dib u dhiska wadada Warshiiq dadka maartay dibadda jira iyo kuwa gudaha joogo qof hurdaayo ayaa la kacshaa qof soo jeeda lama kiciyo. wada haddii ay hesho Warshiiq hadda inta imaahayso ama hadda dadka soo aadayo ka badan ayaa imaahayo. dad badan ayaa maartay wax ka dhisahayo, dad badan ayaa horumar ka sameehayo. haddii Warshiiq wadadeeda la helo ay bajaaj inta amarka soo tagtay imaan karto, laakiin ilaa bajaaj meesha Warshiiq aysan ka soo istaagin horumarkeedu waa gaabis. marka waxaan rabnaa taasina in loo kaco dadka hantida leh oo Ilaahay u dhaliya degmada Warshiiq oo xamar iska joogo iyo kuwa adduunka joogaba inay ka fikiraan inay ayaga ay maartay horumarka ay meeshaan ka sameeyaan. ninna gurigiisa haddii uusan asiga hagaajihayn nin kale uma hagaaji kariyo, nin kalena uma qurxin karo. waxaan rabnaa markii inaan ka wada fikirno sidaan maartay wadadan yartaa oo Warshiiq iyo xamar u dhaxayso loo hagaaji lahay. dhagaxu waa meeshuu yaalaa, safar dheer loo gelimaa, meel saas u fogna laga raadimaa. gaadiidna waxaa ogahay dadka Warshiiq ka soo jeedo gaadiidka ay hayaan kale inuu ku filiya shidaalna inay bixi karaan dadka Warshiiq jooga ogsanahay. halahaas markii la isu keeno marka maxaa soo baxayo wada fiican oo nadiif ah ummadda mari karta ayaa soo baxayso. maamulka gobolka Shabeellada Dhexe ayaa muddooyinka waday dadaalo lagu horumarinayo deegaanada iyo degmooyinka gobolka Shabeellada Dhexe. Muuse Cismaan Abtow, telefishinka qaranka Soomaaliyeed, Muqdisho.